khaliif ciise mudan waxa uu dhashay 1953 waxaana ku dhashay magaalada Boosaaso. Dugsiga Xaaji Mire ayaa waxa uu ku soo qaatay waxbarashadiisii hoose. intaasi kadib 1962 waxa uu u wareegay magaalada Muqdisho isagoo halkaasina ku soo qaatay waxbarashadiisii dhexe iyo saraba. 1970 ayaa waxaa loo diray waddanka Russia isagoo halkaasi ku soo qaatay course Pilot Basic Military isagoo halkaasi ku soo diyaariyay bachelorka duuliyanimada. Скорость не теряй. Давление 20 километров. Интерцептор надо убрать, наверное. sanadii 1974 ayaa waxa uu dib ugu soo noqday waddanka isagoo soo dhammaystay kooraskaasi waxaana uu qaatay darajada xidigle. General Khaliif Ciise Mudan sanadii 1974 ilaa 76 waxa uu qaatay darajada kabtan. 1976 ilaa 79 waxa uu noqday ama sahlay darajada gaashaanle isagoo sidoo kale ku guuleystay bilad geesi oo ku mutaystay dagaalkii Soomaaliya iyo Itoobiya. sanadii 1979 ilaa 83 waxa uu noqday gaashaanle dhexe. sanadii 1987 ayaa waxa uu noqday full colonel gaashaanle sare. halka 1990 uu qaatay darajada sarreeya guuto. sanadihii 1986 ilaa 1990 waxa uu taliyay xerada ciidanka cirka ee Soomaaliya ee Balidoogle. sanadihii 1990 ilaa 1991 wuxuu ahaa taliyay ciidanka cirka Soomaaliya. dhanka waxbarashada General Khaliif Ciise Mudan waxa uu waxbarashada tababar kala duwan u tagay wadamada Talyaaniga iyo Mareykanka isagoo dhanka Talyaaniga ku soo qaatay tababarka Pilot Instruction Training Basic and Advanced 1970 ilaa 1980 halka waddanka Mareykanka ku soo diyaariyay shahaadada MBA jaamacadda Air Command and Staff College 1980 ilaa 1986 isagoo ka soo bartay Leadership, Human Resource and Management. General Khaliif Ciise Mudan sanadii 1993 ilaa 2006 waxa uu dalka ku yeeshay ganacsiyo kala duwan isagoo keenay shirkadaha diyaaradaha oo gaar u lahaa shirkadaas oo ay ka mid ahaayeen Allen Airline, Damal Airline, Mudan Airline isagoo sidoo kalena ganacsiyo kala duwan ka sameeyay Puntland, Muqdisho iyo Nairobi kuwaas oo ay ka mid ahaayeen hoteelada Panorama Hotel, Diplomatic Hotel iyo Orient Restaurant. waxa sidoo kale uu sameeyay shirkadda rinjiga geeska Afrika ee loo yaqaano Colmagas. intii uu ganacsiga ku jiray waxa uu ka mid noqday aasaasiyaasha shirkadda Golis isagoo ka mid ah shirkadda shirkadaasi. sanadii 1991 ilaa 1998 waxa uu ka mid ahaa xubnihii aasaasiyaashii iyo xoreyntii Puntland waxaana noqday wasiirkii amniga Puntland 2011 ilaa 2014. General Khaliif Ciise Mudan waa khabiir ciidan oo leh karti hogaamineed kuna fiican xiriirka caalamka waxaana ku hadlaa 5 luqadood oo kala ah Soomaali, Carabi, Ingiriisi, Talyaani iyo Russian. sidoo kalena waa aabbale 2 xaas iyo 12 carruur ah.